السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دمانتم وإذن سلام يا وأنيقو شيف مهد حسين شيخ نور. أصحابتي دمانتم بقى ارتوات mahadsantihiin maanta waxaan rabaa barnaamij yar inaan halkaan kaga hadlo. horta maxaan u furtay YouTube channel aniga mahad ahaanteeda macnahan u furtay inaan iga sheekay rabaa YouTube channelka waa saddex siyaabood waxaan u furtay. kow inaan dadka Soomaaliyeed maanta maasha Allah yani guriyahooda wax walba ku karsan karo cunto kasta ku karsan karo ee banaanada ka soo iibsado cunooyinka qaaliga ah markastana yani dib ku ah maartay dhaqaalahoodii in aan horta taa dadka aan kaga caawiyo oo si kal ilaab cunooyinka nooc walba ay noqdaan aan baro oo si kal ilaaba wallahi alcadiim inaan baro. muhiimadeeda koowaad waa taas. muhiimadeeda labaad aan YouTube u furto waxa waaye sheefka Soomaaliyeed amba sheefnimada Soomaalinimada inaan maartay aan dadka caalamka aan maartay meel soo garab istaagno dadka Soomaaliyeed amba maartay maasha Allah dad sheef fiican baan ugu jiro maasha Allah cunooyinka ay sameeyaan dadka ila wareereen waa aragteen aroosyadeenka meelaha qaar marka dadka cuntooyinka ajaanibta ay sameeyaan barta looga soo dhaqaaqaa laakiin cunooyinka Soomaalida sheefafka ah waliba yani horumarsan oo maartay jikooyin waaweyn ka soo shaqeeya cunooyinka ay sameeyaan waxa weeyaan waa furaha isgooso marka in aan ummadda dhexdeeda sheefnimadeena aan ku noqono dad sumcad iyo karaamo kale adduun weynaha aniga qaastan ahaan ummadeeda Soomaaliyeed inaan dhexdooda kaga yeesho sumcad iyo karaamad iyo sharaf markii la dhaho sheef mahad ee dadka maartay sawirkeyga markii uu soo istaagayo waa muhiimadeeda labaad ee aan YouTube channelkeyga aan furtay. muhiimadeeda saddexaad ee YouTube channel aan furtay waxa waaye in aan aniga samaysto website oo aniga aan leeyahay oo dadka iga bukansan karaan maalmaha aniga aan jaanis leeyahay iyo maalmaha aan guriga fadhiyo yani sidii sabtiga axada oo kale sida macnaha waxaan idin sameynaa marka website-kaas aan idin sameynaa insha Allah saad markasta ila soo xiriirtaan oo booking iga samaysataan. horta insha Allah waxaan ku bilaabayaa Sweden gudaheeda markay hergasho si fiican u hergasho insha Allah. horta uma baahnid xayeysiin badan in lagu xayeysiiyo uma baahnid waxa waaye laba aroos hadaad cunto ka karisid oo maartay Sweden dhexdeeda ah maasha Allah way meesha kaaga bilaabanaysaa waxa waaye dumarka Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin cunadii cunayaan quality-da cunada dhadhankeeda dhaminayaan xilliin maasha Allah cunada ayaa sameey waxa la soo xiriirayaa aroosadii amba arooskii ayaa leeyahay maasha Allah arooskiina cunadii caadi ma ahan yaaba cunada qofkan idin sameey meesha ay kaaga bilaabanaysaa marka qofkaasi noocaas maartay halkaas laga bukansado telefoonadiisa iyo halkaas laga helayaa. waa muhiimadeeda saddexaad ee YouTube channelkeyga aan furtay. talo maxaa hilmaamayaa marka insha Allah saasa YouTube channelka u furtay asxaabta in maartay bulshada dhexdeeda anaga horta aan ku noqono dad sumcad iyo karaamo ku leh cunooyinkeena maartay sheefaf badan oo Soomaaliyeed ayagana sidaas oo kale in maartay aygan dhiirigelinta u ahaato maartay dadka Soomaalida walaalaheena lacagaha laga daldalanay cunto fiican aan la siinin in ayagana maartay wax dadkooda ay caawiyaan maartay walaalahooda caawiyaan cunooyin fiican ay u kariyaan cunada macaan aad sameynaysid maartay adigoo Soomaali oo chef Soomaali ah dadka Soomaaliyeed ku raaxaystaan. horta maasha Allah waxa aad iyo aad horta maartay muhiim ah in meesha halkan ka sheego ahne dadka ii duceynaya wallahi maasha Allah jazakallahu khair waa mahadsantihiin war ducada yaa ka fiican maasha Allah ducada yani qof sooman maanta dhan soonahay maartay ku soo duceey ku dhaay jazakallahu khair ilaahay gacantaada ha barakeeyo maasha Allah يعني ودتك Soomaalida oo dhan maasha Allah yani waxa aan sameeyay waa maartay waa wax macquul ah waa wax wada positive ah dadkii oo dhan waa wada positive marka aad iyo aad u mahadsantiin ducada ka fiican mar waa barakeysmaysa walaadada Ilaahay ku barakeena caafimaadka Ilaahay ku barakeena cimriga Ilaahay ku barakeena ducada waa shay muhiim ah marka maasha Allah aad iyo aad u mahadsantiin dadkii soo duceeyay oo walaalahayga insha Allah saddexdaas siyaabood waa muhiim aan u furtay YouTube-ka dad baa inta isku soo fadhiistaan no maanta dhan ku hay meeshaan macaash kan karaadina insha Allah horta way jirtaa macaash waxa qof kasta waxa waa macaash waraadinaya laakiin muhiimadda aan u furtay waxa waa taas sumcad maartay in ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ku leeyahay iyo walaalahayga iyo in dadka Soomaaliyeed maartay bulshada aan ku noolahay wadamadan Europe ilaa wadamada caalamka wixii wadankeena ka baxsan inaan naqano inaan tuso hadda waxaan arkay hoteelo Soomaaliya oo Muqdisho ku dhaxayaan oo dad ajaaniba ka shaqeynaya
waay soomaalidii waay ugu shaqay leedahay maxaa ku dhacay way caafimaad qabaan bis yani waxa weeyaan isma taageerno annaga soomaali ahaan isma taageerno waxaan ugu jiro dad aad u fiican waxyaalo quality la sameynayo yani fiican service fiican sameynayo waxyaalo fiican sameynayo laakiin maba aaminsanin soomaali haddaan nahay maba aaminsaninba qof soomaali ayaa ma aragtay 500 qofood ama 600 qofood cunto isbishal oo isku nooca ka soo saari karo qancin karo ma aaminsanin aroos yani ay service fiican sameyn karaan ma aaminsanin annaga horta waa inaan aaminaa annaga waa inaan ilaahay kumadana support garaynaa annaga soomaali haddaan nahay waa inaan maaragtay iscaawinaa that's why ummadda caalamka waan soo garab istaagi karnaa marka ummadda caalamka waan soo garab istaagi karnaa marka insha allah biidnillahi alkariim asxaabta waa wada mahadsantihiin dhammaantiin maxaa hilmaamayaa talow maxaan hilmaamayaa insha allah programyadana way sii socon doonaan waxaan kaloo idin sheegaya insha allah waxaan idin barayaa cunooyin nooc walba saan hore idin kugu sheegay kumanaan nooc cunooyin baa maaragtay aan maaragtay idin bari doonaa insha allah jiko wax badan baan kasoo shaqeeyay dhowr iyo 10 sano jikooyin waaweyn baan kasoo shaqeeyay kuugin kala duwan baan lasoo shaqeeyay hindiya lasoo shaqeeyay carabaan lasoo shaqeeyay adiga kuugin far badan baan lasoo shaqeeyay marka afrikaanada lasoo shaqeeyay maadaama aan naftirkii afrikaan ahay dad madow baan lasoo shaqeeyay kenyaan baan lasoo shaqeeyay oo macna nomad palace hotel yirahdo Nairobi ku yaalo kale marka adiga meelaha kasoo shaqeeyay mid tiri kale marka asxaabta waxa waaye in aan baro يعني 10 qof aad casuumanaysaa maanta kaba soo qabo maxaa ku casuuman kartaa maxaa qurux badan oo sameyn kartaa يعني neef dhan oo ari ah inaad samaysan kartid oo saxan dul fadhiyo 4 xabo oo digaagana dhinacyada ay ka yeelaan oo qurux badan waxyaalahaas ay idin soo wadaa insha Allah waana waxaan garanay oo soo sameyn jiray ku soo shaqeyn jiray insha Allah marka insha Allah asxaabta aniga support garayno waxaad arkaysaa qof wax fiican sameynay laakiin lama support garaynayo hore looma soo qaaday qofkii dad baad arkaysaa yani waxa way videoyaasha arkayaan way qurux badan yihiin way ka sii leexanayaan ma sii share garaynayaan subscribe kuma saarayaan dadka kale because hadda adiga Soomaaliga qofkaaga Soomaaliga walaalkaaga haddii adiga aan kor u soo saarin oo kor u soo qaaday yaa kor u soo qaaday cid kor u soo qaaday Soomaali insha Allah saddexdaas shay aan u furtay waa saddexdaas shay in aan maaragtay dadka Soomaaliyeed qiimahoodii karaamadoodii kugnimadoodii يعني همي وجر انت waxaan rabaa insha Allah biidnillahi alkariim 2 milyan inay daawato aniga subscribe yar hadda kama hadlay mustaqbalka soo socda waxaan ku fikirayaa waxa insha Allah 2 milyan oo maaragtay daawasho ah ilaa 3 milyan 2 milyan oo subscribe inaan helo insha Allah hamigeyga waa kaas biidnillahi alkariim adiga Soomaaliga aan gaarsiin karo insha Allah sheefkaaga Soomaaliga adiga kor soo qaadi karo marka asxaabta insha Allah markaas yani hamiga igu weyn marka intaas waaye marka insha Allah adaa maaragtay yani kor ii qaadi kara adiga Soomaaliga mar walba maaragtay insha Allah support gareyn kara arintaas insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaa maaragtay inuu maaragtay arintaas igu garab galo wax fiican marka sameynayso ummadda wax u soo kordhinaya ajri xasanaad baa ilaahay kaaga siinaya meeshaas marka insha Allah waxaan maaragtay insha Allah jikooyin waaweyn baa maaragtay shaqooyinkii shafnimadii ayaa maaragtay jikooyinka inkasto waxay aan ka fadhiyay oo binjiir aan ka qaatay ciyaaraha culus dib aan ugu soo laabanay jikooyinkii waaweyn dib aan u soo galay insha Allah halkaas oo idinka siin doona casharada ugu waaweyn insha Allah sidoo ugu dhaqsiyaha badan ayaan jikooyinkaas ku laabanaya insha Allah iyo in aan maaragtay aan soo iibsado camera aad u qurux badan hadda wax ka duubay waa mobilkayga iPhone 11 laakiin kasto uu fiican yahay masha Allah saan uu duubay hadartan laakiin camera oo xarabana maaragtay yani hadda ma lahayd duubas oo color fiican aad u fiican oo quality high quality maaragtay aan soo iibsado insha Allah marka asxaabta qaaliga ah programyada insha Allah kaliya cunno karin ma barnaamijyo xiisooyin la soo wada insha Allah inaan dadka ka qosolisiiso yani dhinaca faniga iyo qosolkuna waan ku fiicanahay aniga iyo sheekooyinka waan ku fiicanahay marka barnaamijyadu way fiican yihiin insha Allah aan soo wado نحن كلية موداني واحد معقول يعني ليه ما ترى إن شاء الله وما هتسنتين كن يكوجر ما هتسنتين عادي هذا وما هتسنتين سيد وانا أكسن أي سبوت جرين إنسان إن شاء الله يعني مستقبل كدونه وذلك دون تاني إن شاء الله شايف كينو عن نقد إن شاء الله ضلك سومالي وحرام إن شاء الله أنا مقاعد سبيشال كفرته واللي بقى أنا عن لا يحي وصور كي أنا قص لا يكون دقيقة شوي في شايف المدة إن شاء الله بإذن الله الكريم يعني نولد شيء تاسن كفكرة يعني هرمر كاسن كفكرة إن شاء الله يعني إلهي مارتا يعني أردت جارسي كر إن شاء الله بإذن الله الكريم أصحابته محمد الله هاي رمضان مبارك عيد وناكسن إن كستو عيدها حافظة لسكيقة قادنا إن شاء الله لكن هل كان اسكلا صعدونا إن شاء الله سوشيال ميديا لما أنتم ما تنتهين
ilaahay maaragtay khayr ha idin siiyo waa idin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu